masaakiintana waa la raraa shareecadu qaabkay u taallaa waxa weeyaan zakawaadku although ay yihiin 2.5% laakiin waa 2.5% usuushaadoo dhan laga qaado xoolahaad haysatoo dhan inta la isku daro ayaa 2.5% laga qaadaa haddii sideeda loo qaado oo systemkii loogu talagalay loo bixiyo dadka qof faqriya laga dhexeli maayo malaa dadku tusaalahay wax ku gartaan idiin soo qaban maayo tusaalo qarnigii koowaad ama labaad ama saddexaad waayo waxaa odhanaysaa berigaa dadkaa yaraa iyo berigaa aan hadda idiin soo qabto tusaale ah oo weliba dadka soomaaliyeed ah nin dhakhtaroo soomaaliyeed ayaa tolkii u tegey dabeetana wuxuu yidhi waxaan rabaa reerka inaan qof faqiir aanu yeelanin waxaan rabaa buu leeyahy reerka inaan qaadno zakada ururino dabeetana aan bixinno reerkii badh waa aqbaleen badhna waxay yidhahdeen war mala waxaan suurtagal maaha qaybtii aqbashay odayadoodii buu saaray calaa kulli xaal zakadii buu ka ururiyey dabeetana wuxuu yidhi waxay ii soo qortaan reerka wixii faqiir oo dhan wixii faqiirka ahay oo dhan baa liiskoodii la keenay sanadkii koowaad qayb buu siiyey lacagtii waxaanu yidhi sanadka dambe waa inaad zaka bixis gaadhaan ma aha 10 shilin maaha waa ninku xoolo uu dhaqan karo sanadka dambe zakaysana uu bixin karo muddo yar markuu waday qabiilkoodii oo dhan ma jiro qof zaka qaataa waxay noqotay zakada reerku intuu ururiyeen reeraha kale la siiyo waayo reerkoodii waa wuxuu gaadhay maxay xaddul kifaaya buu gaadhay qof zaka u baahani kuma jiro maaha tusaale aan ka keenayno qarnigii labaad iyo koowaad iyo waa hadda iyo soomaaliyada baabaasanee caynkaa weegaa taqaaniin ayuu wuxuu ka dhigay reerkoodu inaanu noqonin dad zaka wada bixiya inay noqdaan oo qof aan zaka bixiniba inaanu reerka ku jiri karin idan waxaan leenahay zakadu dhan waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo dhanna waa takaaful ijtimaaciya waa qaab loogu talagalay bulshada in faqriga lagaga saaro